waxaan joogaa magaalada Muqdheera waxaa la yiraahdaa Faarax Ali Dacar odayaasha waxaan ka mid ahay Muqdheera joogan soo gaaray maal uu dhibka soo gaaray ay dawladda u geysatay anaka dad islaam aan nahay doofaarkan muddo badan buu nolol jirnay oo nala cabi jiray dawladdu war kama aysan haynin doofaarka cudurka galay oo dhamaaday oo abaartii cudur isku darmay ayaa dad nagala xasuuqay oo dawladda ay dad si oo maartay qalad nagala qaaday waxaa la yiri shabeel baa waxaa la yiri ilmaha kale la yiri geel baa uga tumtay muxuu dhahay ilmaheed geel ma lahayn waxaa la ari baa la ari garan lahaysay marka waxaan noqonay dadkii laga xoog badan lagu tumanay dawladda waxaan ka codsanahay si qalad bay maartay rag anaga u xirtay xabsi ugu jiraan oo ilmahooda aradooda uga maqayin xoolahooda ay u dhumeen u baahilhameen anaka dawladda qalad kamaana galin dad amniyan ahaan iska joogna dawladda Kenya ku jirnay qalad kamaana galin doofaarkana cudur baalaynay abaar baalaynay waqka hada biyaha cabaaya cudur baalaynay arigu la cabaa biyo la cabaa jamsigiisa iyo cudurkiisa ku tiba ariga maartay la cabaa marka anaka maana dad islaam aan nahay doofaar mana qaran mana cunno dad maanta oo doofaar cunno manihin wax kale oo ka daraasanayna malaha waxna dilo maartay oo dhibka hada maartay waa masaakiinka iska cabaa waay waan ugu xasuuqay waan ugu qaldamay dadka aadacada naga sii daayeen waan ugu qaldamay walaalaheen oo nagu qaldameen aad bay nagu qaldameen dadka walaalaheen moodaynay dadka walaalaheen oo cidda abaarta joogan barbaxa kulul ku jiraan oo ilmahoodii aradooda laga xiray oo xoolahooda ay baylhameen oo waraaba ay waqti ay laayeen oo xabsiga ku jilaa saacadan ma aha dad oo maartay dad laaymaha dad wada xasuuqay maaha waa dad reerkooda iska baaramaan oo ilmahooda haystay ilaa saacadan ilmahooda ay gacanta ku haysay xoolahooda way baylhameen durka aadan hada dawladda Kenya waxaan ka codsanayaa raggaas inay si qalad noola haya doofaar anaka maana laaynin mana dilna waana daawan jir maartay wixii cudur baa laaynaa biyuhuna la cabaayay wuuna noolaa doofaarka aniga waxa mana geysan dadkaas si qalad baa noola qaaday dad naga awood badan dawladda Kenya dadkii amnigooda ku jira inay maartay ay dhaqaalaysan la rabay ay ku istaagtay dad ku soo duulamanihin amniga ku jiray dawladda Kenya ay nagu dabay in xuduudka goynay nagu dayn aan ka caran waa dawladda hadda amni darro u qabsata dhibkeeda leedahay kuwa rahmatullahi waxa la yiraahdaa su'aal samow xaanshi waxaan ahay odayaalka Muqdheera ragga xirid adeerya minna aniga dhalay minna adeerkii baan nahay dawladda Kenya waxaan u sheegaynaa anaga dad islaan inaan nahay horta meesha waxaan deganahay dhowr iyo 10 sano yaan deganaa dhowrka iyo 10 sano doofaarkan dalka muu joogay 12 sano oo buurahan deganahay doofaarka dalku ku noolaa doofaarka asaga cudur haduu galay dadka lagu xasuuqay dadka doofaarka cunumanihin aniga oo gaal manihin islaam baan nahay waxaan inii sheegaa dawladda Kenya sida barnaamij shacabkan Muqdheera oo meesha aan deganahay dawladda waan dooranaa wax dadaal oo ka helnaba ma lahaba madaxweynaha Ruto laga bilaabo iyo kansal inta u dhaxaysa ayaan dooranaa marka abaalgudka anigana wuxuu noqday in la xasuuqaba abaalgudka anigu saas uu noqday waxaan u sheegaynaa dawladda Kenya oo Ruto madaxda ka yahay kansalaha anaga u darajo hooseeya intaas waxaan u sheegaynaa dad horta Kenyaan inaan ahayn oo dad burcad oo lagu maartay in la kala dhigay annaga dad islaam baan ahayn dadkii dawladda dooranay baan ahayn waxaa la dhahay mas'uulow warya madaxow minjaha ma ka maarantaa madaxow minjaha ma ka maarantaa maya war midigay bidax ma ka maarantaa maya mas'uulow shacbiga ma ka maarantaa maya shacbiyow maamul dawladnimo ma ka maarantaa maya dawladda inay naga maarantaa hawta u qabnaa anaga daree Muqdheeran waa doorani markaan doorani oo dawladda ay dhisantay in lagu tuntaay bay noqotayba madiida in wax shacab ku fiican ma aha dad islaam baan nahay dadka xiran oo ilmahoodii aradoodii adduunyada laga qaaday dawladda Kenya waxaan ka codsanaynaa doofaarka waa jiran yahay hadda waa dhimanaya waa ka dawladdu tuban uu dhimanaya hadda xooluhu lacabaya boqol baqateen way kortaa laabo dawladda doofaarka la hadda weysato wala daweey dadku wala daweeyay hadda weyso laakiin dadka anaga doofaar u xiran dadka doofaar cunay manihin oo islaam baan nahay
dawladdu waxaan ka codsanayaa dadka doofaarka inay daaweysato anagu cudur noo keenaya dadka anigana si sahlan ay noogu soo siidayso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa la dhahaa aadan maxamed cabdi waxaan nahay dadka degan muuqdheere meesha la dhaha muuqdheere meesha la dhaha waxaa la degan yahay 12 sano 12 sano la degan yahay 12 ka sano la degan yahay markaan soo degaynay sidaan u joogay doofaarka waxa damaanta barbaxa noo imaad ma aha waxa dhacday mawdka iyo maralka way soo socdaan bahal jiran oo iska dhamaanaya inuu imaado dawdi markii uu darkii uu ka batay oo xooli meel ka malayn inaan iska aruurnay oo macnaha batiga aan iska boosteynay waxa dhacday inaan la kor saaray oo la yiri idinka hadlayseen midna qabata ma aha annaga dad islaana nahay doofaar ma maala ma qalana ma gadana dawladda Kenya macnaha Soomaaliya xukuumadda hal jazaa la xisaan oo Soomaaliya xukuumadda ninka sharci wax ka garanayo macnaha abaalgudka waxa weeye qofkii haddii macnaha asxaan ku galo asxaan baa loo galaa baalka aan waraabinaynay nal noola macnaha haddaan ku diidin intaas oo sano la joogay inay macnaha cudur u galay oo u dhamaaday haddii uu dhamaadayna nala kor saaray marka taa iyada mid annaga naqabata ma aha waan ka xunnahay dawladda macnaha iyo dadweynaha way isku kaban yihiin ma kala maarmaan dawladda naga maaranto dadweyne baana annagana dawladda kama maaranno macnaha wixii macnaha aan dawladda uga baahnayn oon ka rabnay waxay ahayd waqti kul baa lagu jiraa abaar baa jirta macnaha nin walba naftiisii iyo neefkiisii u dhow garan lahayaa inay macnaha dadkii ninkii asagoo dantiisa kari la in la xirxiro oo la macbiis waan ka xunnahay aniga waxaa la yiraahdaa Daahir Maxamed Isaaq degmada Muuqdheere ayaan ka mid ahay waxaan idin sheegi annaga dad islaam baan nahay ma aragtaa duurjooga iyo dugaagta iyo waxa inaan iska laayno islaamnimada nooma fasixinba maba noo fasixinba waana lagu qaldamaan umalayna aad iyo aad in lagu qaldamaan aniga arrintaa ayaan u arkaa bahalkan markaan meesha soo degayni 10 xaba ma gaarayni waxaan haysana ayuu ku noolaaday oo intaas ku dhanaaday bahalka asaga ahaa had in maanta lagu haligo oo ummadeena iyo dadkii meesha jooga lagu xirxiro aad baan arrintaa uga xunnahay waxaan u sheegaynaa deewaanka xoog badnahay waa meesheeda laakiin arrintaa dambiga inaan lug ku lahayn yaan dawladda u cadaynayna annaga arrintaa inaan lug ku lahayn aan u cadaynayna oo mar kasta aan u cadaynayna annaga waxaan nahay dadka reer Muuqdheere aan kamid ahay dadka Muuqdheere degan oo xaaskiisa ilmihiisa joogaan nahay annaga doofaarkan intaas oo sano noolaa haddaan dhamaynayno intan ma u tarmeen ma una noolaadeen marka minallaahi looga imaaday wixii minallaahi looga imaaday inuu annaga wiilashayna ay ku xirxiran yihiin ay dawladda Kenya ay qalad intay ku qaaday oo si sahlan oo la qaybaynin wili ay ku qaaday waan ka xunnahay dawladda Kenya waxaan ka codsanaynaa inay wiilashaasi wanaagsan oo degdeg ah noogu soo siidaayo yaan ka codsanaynaa marqaatiyaal badan bayna leedahay bahalkan inuu cudur u laan haayo oo anaga waxba aan u dhumin